السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساكي وحن ربا إن الصومالي ذا يبلشوين تلو ذاقو إن حالة كلا كورونا فيروس بوزيتيف لقى هلا مواد صوماليات وودن كيمت مواد كاس وحقيقين تشلا أي نوتمت حالي نوتمت إن يهاي بوزيتيف مواد كاس ومواد أنا لهين علامته عذر كأيسن كموقنين والحمد لله إلهي وحن كرجينا إنه سكسوب حن مركب موادن كذي بدو كيمت وادت كالهايو وكرنتيلكو كجرة وحن رجينا إنه سن عذركم كسوب حن وحال هين دونا أنتي أناليس كلا لبا يسدح لقى حقيقنا وعافيمات قبا وح علامة كمان موقدان حالة بدنا صاص هجرة وسن كموقن قفك علامته عذرك waxaan ilaahay uga baryaynaa inuusan cudurka ku soo bixinin waxaan rabaa bulshada inaan uga faa'iideysto maanta wacyigelin ku saabsan cudurka sida looga hortago loo xakameeyo saa la socotaan wadankeena xaaladda caafimaad waa iska liidata waa wadan soo koraya dhibaato badan ay haysata waxyaalaha aan ku dadaali karno guud ahaan bulshada Soomaaliyeed waxa waa inaan cudurkaas ka hortagno sidaad la socotaan diyaaradihii waa la celiyay inta dhimanna waa lagu daba jiraa in la celiyo oo safaradii isu socodkii waa la hakiyay waxa kaloo la hakiyay goobihii shaqada oo 2 satimaan ayaa la fasaxay waxa kaloo la hakiyay oo la fasaxay ardadii dugsiyada dhiganaysa ee jaamacadaha muwaadin kastoo ka yimaada meelaha qatarta ay ka jirto cudurka uu ku haayo waa la xakameynayaa waa la karantiilayaa ilaa 14 beri ayaa la haynayaa waa wax loo baahan yahay in la sameeyo sababtoo ah qofkina xaaladiisa in la xaqiijiyo haddii cudurka uu qabana aan lagu deynin bulshada oo intii ka badnay uusan cudurka qaadsiinin waa taxadar muwaadinada ku jira meelaha karantiilka waxaan ka baryaynaa inay noo dul qaataan ay nala sugaan ilaa iyo la xaqiijiyo in cudurka jirkooda uusan ku jirin waxaan rabaa inaan u sheego bulshada waxyaalaha ugu badan oo laga hadlayaa waxay ahayd in isku socodka iyo meelaha la isugu yimaado ha ahaadaan iskuulaad ha ahaadaan jaamacado ha ahaadaan xaflado totally in la joojiyo aadna loo yareeyo kulamada ay isugu imaanayaan dad ka badan 15 qofood in la kala dheeraado oo ma aragtay aan gacmaha la iska salaamin in aanan lees hagareynin oo aan lees haanyoonin cudurka waxyaalaha uu ku fido oo dhan waa la sheegay wasaaradda waa qaybisay raadiyayaasha waa laga sheegi doonaa wacyigelinta waxaan wada awoodno inaan sameeyno qof walbo annaga naga mid ah uu sameyn karo waa idin baryaynaa waxaan idin ka baryaynaa in la dul qaato oo ilaa iyo intii amar dambe uu soo baxay la yareeyo safarna la aadin meelaha waaweyn la isugu imaanin ardada guryaha lagu haayo haddii ardayga iskuulka iyo dugsiga laga celiyay uu guriga joogo laakiin banaanka markuu u baxo ilmo kale badan uu la ciyaarayo wax weyn ma aanan sameeynin still wali waxa waa ilmihii contact leeyina waa kulmaaya calaamadaha qofkii isku arko waxaa jira 10 line oo magaaladan laga fuliyay goboladana laga wada fuliyay qaarkood gobol kastana laga fulin doono waxay soo wacan karaan nambaradaas waxa loo sheegi karaa waxa uu sameeynaa qofkii iska dareema calaamadaha inuu wacdo telefoonka la hago qofkii xanuunka loo tago la fiiriyo haddii calaamadihii uu qofka leeyahayna in la xakameeyo la ogaado qofkaas ilaa iyo intii uu ka caafimaad qaba waa ku celinaya mar walba Soomaaliyeey walaalayaal waxaan idin leenahay hal la yareeyo salaanta meelaha cariiriga ayaan la isugu tagin gacmaha waxyaalaha ugu fudud oo lagu qaado waa gacmaha adoo taabtay qof cudurkii qaba meeshuu taabtay gacmaha ugu yaraan 20 second in saabuun iyo wixii looga hortagay jeermiska lagu dilo in lagu dhaqdo in la yareeyo socodka in qof walba gurigiisa uu isku xakameeyo si asagana u badbaado qofkii kaleeto oo bulshada kalena uusan u gudbin cudurka waa cudur hadduu hal qof qabo qaadsiin kara ugu yaraan 10 qof oo guriga joogto waa wax waajibna wada saaran culimo civil society takhaatiir qof allaala qof kastoo Soomaali waajib ka saaran yahay inuu xakameeyo uu ka hortago cudurka in la kala dheeraado inaan la salaamin in nadaafada lagu dadaalo gacmaha aad loo dhaqo qofka nadaafada jirka iyo nadaafada guriga iyo meelaha wasakhda biyaha uu iska hagaajiyo
in guriga la joogo waxyaalaha waa waxyaalaha aad loogu xakameyn karo waxaad arkaysaan wadamo waaweyn oo naga dhaqaalo badan oo naga qalab badan oo caafimaadkooda naga horumarsan yahay in meydadkooda maalin walba qaarkood 700 ilaa 800 ay dhimanayaan waxa ugu horeeya waxa waaye waxay dadka iska indhatireen calaamadihii iyo sida lagu xakameyn karo oo ay ka kow tahay inaan la isdhexgelin in la kala dhowrsanaado ayaysan dadkaas aysan raacin fadlan hal la raaca wasaaradda caafimaadka tilmaamaha ay bixinayso waxyaalaha la sameeyay taqaatiirta ururka taqaatiirta Soomaaliyeed oo si dhow ula shaqeyso culamaa u diinka in la yareeyo bixitaanka aan la bixin hadaysan muhiim ahayn laakiin loo baxa kaliya waqti yar oo qofka soo adeeganaya in goobaha la isugu tagayo la joojiyo in ardada guriga lagu haayo oo la kala dhowrsanaado waa mahadsantiin waxaan rajaynayaa ilaahay cudurka inuu naga qabto labada qof oo laga helayna ay ka yaani uusan ku soo bixin oo ka badbaadaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh labada qof ee cudurka hadda ku sheegtay in laga helo coronavirus-ka maragba ma dumarba xagee ka yimaadeen sideesay tahay awoodda dowladda Soomaaliya ee ku aadan cudurka coronavirus labada qof waa laba qof oo raga dibadda ka yimid caafimaad qabo ilaa iyo hadda waxaan idin sheegayaa inay yihiin laba qof muwaadin oo dibadda ka yimid hadda korkooda uusan ka muuqanin cudurka kaliya la jirkooda uu ku jiro viruska ilaahayna aan ka rajaynayn inuusan ku soo saarin hayn doonna intii loo baahan yahay maalintii uu dhamaado waqtigii loogu talagalay baaritaan kale zaa'id loo sameeyo markay negative noqotona aan deyn doono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh